نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عياذا بالله. انت كبعدي وحين إن شاء الله تعالى كهل دونا أرن مالمهن dadku ay ku sheekaysanayaan dadkuna isugu jiraan mid mucaaraday iyo mid aqbalay iyo mid ka aamusayba arintaas oo maalmahan bulshada muslimiinta ah gaar ahaan yani Soomaalida markaan ka hadlayno ku soo cusbooraatay arintaas oo ah cunitaanka la cunayo hilibka waraabaha ama hilibka dhurwaaga waxa loo yaqaan culumadu way ka hadashay wayna tilmaameen hilibka dhurwaagu ama waraabuhu inuu xalaal yahay xadiisna ku sugan tahay laakiin arrinka hadda inagu aynu joogno dad badan oo yani mucaarad ka muujiyay ama dood ka muujiyay ayaa u tira badan marka insha Allah taala waxba ku siyaadinayna inta culumadu tilmaantay baan sheegaynaa anagoo runtii dadka u waadixinayna dhurwaagu waxa uu yahay iyo waraabuhu wuxuu yahay iyo waxa nusuusta ay ka tiri saan ognahay nabiga kaleey salaatu wasalaam bay ka sugan tahay arrinkan isaga ah in dhurwaagu uu xalaal yahay oo banaan yahay waxa laga wariyaa ibn abi amara tabi'igaas baa wuxuu yiri sa'altu jabir ibn abdullah radiyallahu ta'ala jabir baan waxaan weydiiyay an ad-dab'i dhurwaaga ayaan weydiiyay ama waraabaha ayaan weydiiyay fa amarani bi akliha jabir ibn abdullah markaan su'aasha weydiiyay ama aan weydiiyay yani dhurwaaga ama waraabaha wuxuu amray inaan cuno fa amarani bi akliha ninkii isaga ah su'aashii ku ceshay wuxuu ku yiri qultu waxaan ku yiri asaydun hiya ma ugaartu kamid yahay ugaar miya qala na'am jabir ibn abdullah saxaabigaas wuxuu yiri ha ugaarta ayuu kamid yahay uu si wadiyo wuxuu yiri qultu asami'tahu min rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam arrinka ma adiga nabiga alayhi salatu wasalaam ka maqlay qala jabir radiyallahu ta'ala anhu wuxuu yiri na'am ha aniga ayaa ka maqlay nabiga alayhi salatu wasalaam xadiiska marka waxa uu noqono jabir ibn abdullah oo la yaqaan saxaabada nabiga alayhi salatu wasalaam kamida waxa la weydiiyay waxay marka hore ahayd dhurwaaga ama waraaba waxa loo yaqaano saxaabigii waxa uu ku jawaabay wuxuu yiri ninkii weydiinay wax amray inuu cuno su'aashu lagu ceshay waxa lagu yiri ma ugaartu kamid yahay waraabuhu haa buu ugaartu kamid yahay waa lagu ceshay su'aashu waxa lagu yiri ma adiga nabiga alayhi salatu wasalaam ka maqlay qala na'am buu ha ana nabiga alayhi salatu wasalaam ka maqlay xadiiskan isaga ahi soo ognahay afarta sunanta ayaa wariyay imaam tirmidhi abu daud nisa'i ibn majah وانا حديث صحيح ويان سيد إمام الترمذي رحمه الله تعالى وليه حديث حسن صحيح استراحات كاستعماله إمام الترمذي رحمه الله تعالى كم تاه حديث كان هو حديث حسن وصحيح
afartaa sunanta ah oo ka mid a ummahaatu sita ka mid ah ayuu xadiis ku sugan yahay. culummada mucaasiriintaana oo cilmiga xadiiska aqoonta u lena markay tilmaamayeen sida imaam albani raximah اllahu tacaala xadiiskan saxiix buu ku tilmaamay, wuxuuna saxiix kaga tilmaamay oo laga heli karaa kitaabka loo yaqaano saxiix ibni maajah, saxiix tirmidi, saxiix abu daawuud. saddexdaa kutub ayaad ka fiirinaysaa ee xadiiska isaga hayso imaam tirmidi yani imaam albani raximah اllahu tacaala ku saxiixinayo. sidoo kale kitaabka loo yaqaano irwa khaliil kara waa laga fiirin karaa. marka xadiiskaasi waa xadiis waxa weeyaan saxiixa weeyaan sa culimadu tilmaameen. saan sheegayna ummahaatu sita afar ka mida ayaa xadiiska wariyey, ama ragga loo yaqaano sunanta afarta sunanta aba xadiiska wariyey. xadiiskaas marka wuxuu caddaynayaa oo tilmaamayaa dhurwaagu inuu ugaarta ka mid yahay. dhurwaagu inuu ugaarta ka mid yahay. dhurwaaga in la cuni karo, hilibkiis la cuni karo, xadiiskaas wuu caddeeyey. weliba jaabir ibn cabdilaahi nabiga calayhi salaatu wasalaam baan ka maqlay buu xadiiskaa leeyahay. xadiisku duruq kalena waa ku yimi. imaamu xaakim raximah اllahu tacaala kitaabkiisa loo yaqaano mustadraga loo yaqaano ayuu dariiq kale ku wariyey caطaa can caطaa can jaabirin radi allahu tacala canhu. caطaa oo ka warinaya jaabir ibn cabdilaahi ayaa wuxuu leeyahay nebiga calayhi salaatu wasalaam ba wuxuu yidhi addabacu saydun, dhurwaagu awgaar weeye. faإida asaabahu اlmuxrimu, haddii qofka muxrimka ah xajka aaday uu asiibo wax ku dhufto ama uu dilo, kabshun musin, waxaa laga qaadaya booskiisii orgi baa laga qaadaya, soo maartaan, ama wan baa laga qaadaya, wan baa laga qaadaya. ilaahi subxaanahu wa tacaala markuu qofka muxrimka uu yahay uu xajka u socdo, waxaa laga xaaraantimiyeelay sida aayaadku tilmaamayaan sayd ulbari ama ugaarta dhulka marta ayaa laga xaaraantimiyeelay. waxaana loo baneeyey ugaarta badda loo baneeyey. qofka muxrimka ah oo xaramka xirtay, qofka xaramka xirtay markuu yani xaramka xirto kabacdi ugaar ma dili karo qofka isaga ah. hadduu dilo booskeed waxaa laga rabaa inuu kafaara gud la yimaado. qof marka muxrim oo xajka xirtay ayaa dhurwaa dilay, hadduu dilay orgi baa laga rabaa, yani waxaa laga rabaa wan baa laga rabaa, yani xoolo dhigma laga rabaa. nabiga calayh isalaatu wasalaam xadiiska isagaana waxa uu ku tilmaamay yani dhurwaagu inuu yahay ugaarta inuu ka mid yahay, oo haddii qof muxrimihu ugaar ahaan u dilo in booskiis laga rabo maxay inuu kafaar gud la yimaadaho neef la mida neefka la dila ula yimaado la keeno. xadiiskasaan sheegay xaakim radia allahu tacala canhu, xaakim raximah اllahu tacaala wa radia allahu tacala canhu ayaa wariyey kitaabkiisa loo yaqaan mustadraga ayuu ku wariyey, waana xadiis saxiixa weeyaan. sidoo kale xadiiskan haddaan tilmaamayo imaam albani raximah اllahu tacala kitaabka loo yaqaano saxiixu jaamic sagiirka ayaa laga fiirin karaa, waa xadiis saxiixa weeyaan. waxaa kaloo xadiiskan wariyey qaab kale u wariyey inta hadda aan tilmaamay kuma eka oo afarta sunantan soo sheegay iyo xaakim keliya kuma ekee ibnu khuseyme xadiiska waa wariyey. sidoo kale imaam taariquni, bayhaqi, kulli xadiiska ma la wariyey. xadiiskan isaga ahi marka maadaama intaas aan tilmaana sanadkiisa uu saxiix yahay, waxaa laga maarmaana marka qofka muslimka ahi marka lagu yidhahdo nabiga calayhi salaatu wasalaam baa saas yidhi oo dariiqo saxiixa xadiis ku yimaado ama xasana ku yimaado, qofku inuu qaato laga maarmaan weeyaan. qofku inuu moor ka keeno laga maarmaan weeyaan. waxaan saa u leeyahay dadkii markii lagu yidhi oo culimadu tilmaameen in yani dhurwaaga waxaa loo yaqaano waraabaa loo yaqaanaa uu xalaal yahay, hilibkiisu xalaal yahay, waxaa moodaa dadku inay leeyihiin see loo cuni karaa, dadku waa waasheen waxay cunayaan mataqaanaa dhurwaa bay cunaayeen iyo wax la mid ah. arrinkaa isaga adiga waxba kaama gelin. haddii lagu baneeyey adu haddaadan cuni karin faraha ka qaad. laakiin nabiga calayhi salaatu wasalaam bay ka sugan tahay baa lagu yidhi, xadiis weeye baa lagu yidhi, waa xalaal wey hilibkiisi baa lagu yidhi, inaad saa ku qaadato laga maarmaan wey marka. saadan ku qaadato laga maarmaan wey marka. imaamu sancaani raximah اllahu tacala kitaabka loo yaqaano subul salaamka, sancaani kitaabka subul salaamka markuu sharxa ka hadlay xadiiskaas waxa uu leeyahay rawaahu axmed wاlarbaca
إمام أحمد باوريي مسند كيسة هي 4 أفرتان سوى الشيخين سننتها وإمام ابن ماجه ترمذي نسائي أبو داود وصححه البخاري وها حديث كان صحيح يا البخاري وإمام ترمذي باوديي ووحو ليه حديث كان يسقاهي وصحيح وحيري إمام البخاري وابن حبان سيدو كله وحو ليه حديث كاني وحديث صحيح ويان marka imaam Sancaani rahimahullahu ta'ala hadiiska markuu inta tilmaamay oo ka hadlayay wuxuu yiri al-hadithu fihi dalilun ala hilli akli ad-dab'i hadiiskan wuxuu ku tusayaa in yaani dalil u yahay hadiiskani dalil buu wuxuu yahay inay banaan tahay cunitaanka la cunaayo yaani waxa loo yaqaan waraabaha ama dhurwaaga loo yaqaano hadiiskani wuxuu dalil u yahay in la cuno dhurwaaga ama waraabaha hilibkiisa la cuno wuxuu ku daray marka imaam Sancaani rahimahullahu ta'ala markuu sii wada wuxuu yiri wa ilayhi dhahaba Shaafi'i sidaas baa waxa ku tagay imaam Shaafi'i rahimahullahu ta'ala فهو مخصص من حديث التحريم كل ذي ناب من السباع حديث كان وحو خاص كيهي xadiiska caamka oo sheegaya inuu xaraan yahay wax kasta oo miciyo leh inay xaraan yihiin halka la fiirsan fiican waxa arkay culimada qayb kale markay tilmaameen xadiiskan idaacada laga wareystay inay xalaal yihiin inay dad kale idaacada kale ka hadleen leeyihiin yaani wax arrinka isagaahi xaraan weeye sababtoo nabigu wuxuu xarimay wax kasta oo miciyo nabigu in la cuno waa xaraam yeelay naam waa xaraam yeelay laakiin waxa aadan kala garanayn oo aadan kala fahmaynin maxaa khaas la ilaahay maxaa caam la ilaahay فقه الإسلام كان قف كما هل كربا حدوثا أقونين يعني خاص يعامل كراقونين حديث كأورنا يا نبي عليه الصلاة والسلام ليه هو حرام وحكست أود معله يعديه وين له إن العنا يعني وحرام حديث كلا أورنا يا حديث كاس وحديث عام ويا وحسوه كلا وحكست أود معله حرام ويا أسد لباحة كمده متقنا يجدا كمده وحسوه كلا لكن حديث كان لقول ليه هاي دروغ ليه هاي وخاص ويا dhurwaaga ayuu khasisaya marka laga maarmaan way qofka mataqaana ariga radinaya oranaya oo soo qaadanaya xadiiska oranaya nabiga kaleey sallallahu alayhi wasallam wuu diiday wax kasto micileh inuu dib isugu noqdo qofkaas isaga ay barto waxa loo yaqaano caam iyo khaas qofku barto laga maarmaan weeyaan marka wuxuu leeyahay wa ilayhi dhahaba ash-Shaafi'i imaam Sancaani baa leeyahay arigan waxa ku tagay imaam Shaafi'i rahimahullahu ta'ala فهو مخصص من حديث تحريم كل ذي ناب من السباع حديثكي أورنايا وحاران وحكستو معله وصباع كمد حاران وأورنايا حديث كاسبو كانوا كخصيصيه كجاريه حديث اسمه عام ويان يعني هلا كان وحى إمام الشافعي لو كنت قبالي ذلك الصومالي أنا دينا جيبوا نقضان بافي عن ما دام إنه أي مشاغر إنه مذاهبته يعني شافعي ذلك الصومالي إيرادان ما الشافعي مارتي في قلوب بديهم كتبت الشافعي دي لو نقض مرك ما دام اللي إمام الشافعي دي بقتري إمام الشافعي أيام مارت أرني كان قبض اللي هذا وقال الشافعي إمام الشافعي وحل يري وما زال الناس يأكلونها ويبيعونها بين الصفا والمروة من غير نكير والله فرصة إمام الشافعي رحمه الله تعالى وحل يري دتك كزول مايان دتك كمزولين إني يعني عنايان درواق الله هلايا إني درواق عنايان إني كرئيب سنايان بين الصفا والمروة لبدا بوردوي قانا الصفية مروة وملها للصمية مركز للصمية مناسك حتى سعي الوسمي حجك مناسك كمدة أعماش للصمية قفك حجك الصمية يعمر ضبا كمدة مارت أعماش هذا لبدا بورود لحظة السوق كأولا بالوك لقدان جري من غير نكير أنكر الله وح أنكر مجرين ولا كلقدان جري إمام الشافعي رحمه الله وبهاصله حديث كمركا أما حديث تا درغة بدن كردوان له أو تلماميسة درواقة وأنا تلمامي وحا لغا مارمانا مركا قفك إنو قاته أو كل رقمه أو يعني أقادو قفك وحا حلاليهن مد واجرتا أديقو هدي أطلب سنيسيت oo aan leedahay anuu ma cuni karo adoon waxba ka sheegin faraha ka qaad nabiga kaleey salaatu wasalaam baa loo keenay wax loo keenay baasha inagu naqaano nooc kamida masalugaleyda ama mas'agaleyda ama abis agaleyda yiraahdo oo Soomaalidu u yaqaan magacyo kala duwan
والنبي الله كياني صحابة قبل كده فديان ما كان النبي عليه الصلاة والسلام وسكريحي أنا معنا يبير نبي وحط الماء مركا إنه يعني واحد دريما إلا الله بدريما يو أنا معنا يبو سوريحي صحابة يا مركا عنتي صحابة ما عنتي هذه مركا أضواء لبسنة السيد هي كان إنه يهي أنا نفط على السنكرين وحال الله إن أوقاته إنه حلال يا مدام النبي كسوي يهي مدام النبي عليه الصلاة والسلام كسوي يهي إنه حلال يهي بالدور يا إن أوقاته لكن أنا أضو هذه أنا ربين إن أسيا عيده وحكشك ترى جمر مويه ضد waxay ku andacoonayaan dad waxay ku andacoonayaan durwaagi la yaqaan waaga ma waa culimaduna way ka hadlaan qayb kamid ka doodaan durwaagani ma aha durwaaga la yaqaan waa ka duwan yahay hadaa fiirso kutubta ka hadasha arinka horta isaga waxba kama jiraan inaad taa durwaagani iyo kii hore kala duwan yihiin waxba kama jiraan laana hadii aad fiiriso kutubta ka hadasha xayawaanka kutubta xayawaanka hadaa fiiriso oo Ingiriis iyo Carabi bale luqadooda baa ku qoray maanta daa fiiriso waxaad arkaysaa durwaaga saddex nooc oo durwaagu sidiisa saddex nooc weeyaan waxa dib loo celinaya intaas oo sano marka mesela hadda qaybta Ingiriis oo kale markay ka hadlayaan Wikipedia marka ka eegto ama mataqaana kutubta xayawaanka marka ka hadasho waxay dib u celinayaan 6 milyan sano ka hor bay leeyihiin ilaah baa yaqaano xilliga ayada laakiin waxay ku leeyihiin 6 milyan sano mar dib u celinayaan nooca durwaagu yahay iyo wuxuu yahay saddex nooc way durwaagu mid barabara leh oo dhibcaha leh waa ka wadankeena ugu badan iyo mid diilimo leh iyo midabkan loo yaqaan buniga loo yaqaan ama brownka loo yaqaan ama kafeega loo yaqaan leh saddexda nooc weeyaan wax kale oo ka soo haray ma jiraan saddexda nooc oo durwaaga ama caalamka soo maray caalamkana jiray waligeedna jiray haddana jira marka kutubtaas ka hadlayaan waxay leeyihiin yani saddexdaas baa jira durwaa waxayna u badan yihiin saddexda durwaa waxay u badan yihiin noocyadaasi Africa iyo Asia meel ka mid sida Carabaha oo kale iyo dhulkaas ay u badan yihiin marka in lagu baraarugsanaa fiican laga doodo maaha yani durwaaga aqoon jirna maaha iyo kanu naqaan maaha wax noocaas oo kale ah waa kala duwan yihiin arinka isaga ina ku doodo wax ma taqaan laga doonay maaha marka ina ku qaadan laga doonaya xadiiskan wuxuu tilmaamayaa durwaaga hilibkiisu inuu xalaal yahay sayna ku qaata laga doonay nabiga kaleey salaam ina caardo tiraahdo waxaas wax banaan maaha iyo xaraan weeyo waxay noqonaysaa in xadiiska caaradiisa noqonaysa in askaas laga marmaa weeyaan markay sifaadkiisa tilmaamayaan kutubta xayawaanka xayawaanka hadla waxyaalo badan bay ku tilmaamaan waxay tilmaamaan markay sifaadka durwaaga sheegayaan oo kale inuu qabuuraha qoto oo la soo baxo qofka ku jira mataqaana uu maartay kala soo baxo halka ka cuno maydku cunaa baa la yiraahdaa waxa kale oo ku tilmaamaan haddii qof hurdo u yimaado kale wuxuu sameeyaa dhuuntu qabtaa ila dhiig ku cabaa dhuuntu qabtaa dhiig ku cabaa waxay kale oo tilmaamaan yani buwaagta yani qora xayawaanka sida durwaaga ka hadlay waxay yiraahdaan waxa weeyaan wuxuu cunaa hilibkana wuu cunaa dhirtana wuu daaqaa hilibkana wuu cunaa dhirtana wuu daaqaa markaas waxay ku leeyihiin baktigan cunaayo dhiigan cunaayo calooshiisa waxaa jirta aalad baa jirta yani shay baa jira calooshiisa ku jira oo bedelaya wuxuu cunay baktigu cunay baktiga cunayo wax cunayo calooshiisa waxa jira yani waxyaalaha dheefshiidka la xiriira weeyaan oo bedelaya baktigu cunay bedelaya jira wama dalika daawo ahaan loo isticmaalaa durwaaga kale hilibkiisa waxa daawo ahaan u isticmaali jiray Greegi hore dadka la oran jiray Romaaniyiinta daawo u isticmaalaan waxa kale oo mataqaana uu isticmaali jiray dadka loo yaqaan Turkiga ayaa daawo isticmaali jiray hadaa fiirso marka kutubta ka hadasho English oo kale waxay leeyihiin مثلا waxay tilmaamaan hyena waxa la yiraahdo yaqaan magacaas u yaqaanin waxay leeyihiin hyenas are used for food and medical purpose durwaaga waxa loo isticmaalaa cuntahan waa loo isticmaalaa medical ahaan waa loo isticmaalaa daawahan waa loo isticmaalaa indaas yani markaas saddex laba tilmaamo leeyihiin waxa loo isticmaalaa hilib ahaan waa loo yani cuntahan waa loo isticmaalaa daawahan loo isticmaalaa in some area meelo ka mid ah adduunka including nations under the Shafi'i school waxa ku jira meelahaas uu isticmaala daawada ama hilib ahaan u isticmaala durwaaga wadamada ka tirsan Shafi'i school wax loo yaqaano waxaan ka soo naqliyay durwaaga ay leeyihiin gaalada leeyihiin ka soo naqliyay durwaaga gaalada leeyihiin ka soo naqliyay oo tilmaamay waxay leeyihiin hyenas are used for food and medical purpose in the some areas including nations under the Shafi'i schools
waxa loo isticmaalaa daawa loo isticmaalaa wadamada isticmaala waxa kamid ah wadamada madhabka shaaficiyada haysta ayaa kamid ah wuxuu ka leeyahay where hyenas are considered as halal meelahaas oo loogu yaqaano dhurwaagu inuu xalaal yahay waxyaaluhu xalaasha keenaya wuxuu leeyahay sababtoo ah wuxuu xalaal ku noqday oo cuntahaan loogu isticmaalaa dhurwaagu wuxuu isticmaalaa dirtana wuu cunaa wuxuu kaloo cunaa yani hilibkana waa cunaa oo ugaartu cunaa ومع ذلك وساس سو مقلنا waxay leeyihiin waa xalaal weeyaan marka fiiriso kutubta yani ka hadla taariikhda xayawaan ka hadla waxa kamid ah ereyada isticmaalaan waxay leeyihiin midan ka soo reeyay wuxuu leeyahay ومن عجب أمره يكون سنة ذكرا وسنة أنثى waxyaala cajiibka oo dhurwaagu leeyahay waxa kamid ah sanadna wuxuu noqdaa yani hal neef oo kamid dhurwaa kamid ah ba sanadna wuxuu noqonayaa dakar buu noqonayaa rag buu noqonayaa ama nin buu noqonayaa sanadna wuxuu noqonayaa haween buu noqonayaa blee ومن عجب أمره يكون سنة ذكرا وسنة أنثى sanad wuxuu noqonayaa nin sanad naag buu noqonaya marka wuxuu leeyahay sanadka uu ninka yahay midda naagta buu u tagaya sanadka uu naagta uu yahayna isaga loo tagaya ilmo dhalaya marka saas qayb kamid ah kutubta quraan taariikhda ka hadlay kuwa kale waxay leeyihiin maya waxa weeyaan laba dhinac bay kala yihiin yani laba nooc bay kala yihiin marka kutubta quraan waxay ku leeyihiin qof ay bahalka loo yaqaan dhurwaaga loo yaqaano qofku markuu arko waxa moodaa inuu dhutinaya moodaa dhurwaagu inuu jiis yahay moodaa buu leeyahay laakiin wuxuu leeyahay waa aragga qofka arkaya kaliya weeyaane waxba jiis maaha xubnihiisa midihii kala ah baa kala adag buu leeyahay laakiin wax jiisnimo oo lugsi kale ma jirto laakiin qaarka sare uu dheer yahay qaarka dambana waxa way labadiisa lugood oo bidixda iyo midigta ah baa mid ka mid kala ka jilicsan tahay marka waxyaalahaas waxay ku tusayaan dhurwaagu waa qaabka uu yahay iyo waxyaalaha uu yahay iyo nooc uu yahay marka hadalka waxaan ku soo gabagabaynaya Soomaalidu had u hadal badan tahay weegaana waxa caalamka qabsaday in laga hadlayo arinta la xiriirta dhurwaag la xiriirta axaadiista nabiga kaleey salaatu wasalaam waan tilmaanay in axaadiis saxiix yihiin oo culimada ay ka hadleen iyo wixii laga yiri waxa laga maarmaan marka in aad wixii nabiga kaleey salaatu wasalaam ka sugan saas ku qaadato wixii nabiga kaleey salaatu wasalaam ka sugan asaa ku qaadato hadii adigu aan hilib ahaan rabina cuntana ina ka aamusto hadda caad ba gaartay la isku dacaadeeyo oo wax la isaga sheego oo maarta la isku maagay gaartay dad ba wixii ka doodeen xal maraan soo maray meel shaal lagu cabaayay yani waxay leeyihiin nabiga kaleey salaatu wasalaam ma cunin oo nabiga afkiisa ma saarin see loo cunaya marka waxaan iyada يعني النبي عليه الصلاة والسلام نعم ما هي إنه يسوق عني لكن النبي عليه الصلاة والسلام تام عنده ما هدول يسوق عني حرام وما أو واحد جرا إنتاس أو حيوان أو مقال النبي عني قريق أو كل النبي قريق عني أنا وريق المقال النبي عليه الصلاة والسلام أو متقنا بعيد عني وريق المقال أو يعني لما عابيه أو لا قريق النبي ما تعنى له مقال لما شيء ما كتام عنده ما هذا النبي عني إني حرام تهاي معناه ما إني حرام تهاي معناه ما النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان قارب بأشياء قبا مرك الدليل من قرايه النبي عليه الصلاة والسلام عنن بقول حيوان وسنبي عنن أيو النبي عليه الصلاة والسلام حلال وشيء والله تلمامين حلال يبل تلمامي مرك إن لقدك توناده معارضات كنوع عصو كلاهي والله غمار ماوية نعم ويجران علماء غيب كمده علماء غيب كمده ويعني يقول ليهين أرك اسمه بنانا وحكم ده إمامه أبو حنيفة رحمه الله تعالى أبو حنيفة أنا ما يقول له يقال حنفية وحا استعماله إذا كمارة باكستاني يعني هندي لوكاس دكن أي استعماله مثل كله يقال يعني حنفية أما أبو حنيفة رحمه الله تعالى قصوا بالله نقلي مذهب كاسي أما الشيخ أبو حنيفة رحمه الله تعالى يعني حرام ويبليه لكن اجتهاد كعلماء ويا حديث باسوغان حديث كسو دليشانaya waxa weeyaan Abu Hanifa kale waa xadiiska caamka ah oranayay nabiga kaleey salaatu wasalaam wuu diiday wax kasta oo micyo leh
in la ugaarso la cuno waa diiday xadiiskuna caam weeyaan laakiin xadiiska hadda aan tilmaamay xadiiskan ruwaagu waa khasisaya gaarbu ka dhigaya ruwaagu khasisaya marka saaha loogu baraarugsanaado insha Allah ta'ala intaas ayaan ku soo gabagabeynaya wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam wa jazakumullahu khair wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh وصدق كسوما صح